مالك بن دينار رحمه الله هبين هذا كمدو كما نامي منام بالغو يركع مساجد كويا الله حافظها ومدينة بصرة إن يرى الشاب جوجا وإلهي كعبودية سدح مع المودير كاسع تمعن هذا الراشين كريو أجيب بالغو منام وكعي انتدي بصوت دياريه مسكيت كي ويمدي وحو سو غلاي ان يرو شاب دعيسنا شباب كيني شباب كا اسكو اغ انتدي بو دغاي ولا عناي markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yiri aqalkaygu waxa ku yaala xaafada ka dambayso ku yaala wadada saa u soo marsada u soo mar ali markaad baahateen cunto u baahatay ii kale buu ka yiri hadalka markuu yarkii yaraa maqlay wajigiisa buu bedelay wuxuu yiri maad taqaan horay may manku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyay inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento ka bariyadiisa intoon daayiman adiga ku imaada buu ka yiri ida saalta fas'al illah kaasaan bari buu meel kale ma bariyo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu anigu albaabka khaaliqan garaaca bas xiriirka ilaahay inaga dhaxeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xiriirka inaga dhaxeeya inaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jirkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaadii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan quraankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan عمل وناكسن بلا ربا إن لك شقيو صلاة الصبح أي النبي أنه كبحي عليه الصلاة والسلام صحابتي يسيب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري كينيبا ساك واقو بري إسقو صومن أبي بكر بعيد عنيقا كينيبا ساك واقو بري إسقو غف بكنا صوب بغضي أبو بكر بعيد عنيقا كينيبا ساك واقو بري إسقو جنازي أسنا كسو قيب قلي أبو بكر بعيد عنيقا كينيبا ساك واقو بري إسقو مارك تاني qof xanuunsanaya soo ziyaartay Abu Bakar baaydi aniga markaabuu nabigu khasaalka aan soo sheegay nin uma kulanta haday u kulantana ninkaas waa hel jannadu rasuulku yiri qabla salat al-fajr ayu Abu Bakr as-Siddiq isagoo sooman waagu u bariyay isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo ziyaartay miskiina soo quudiyo wax soo siiyay daar al-amal bay joogeen ay garteen inay daar al-amal inay joogaan bay garteen دار العمل بان جوجنا دار الجزاء هل كان ماها دار تلي نجوا أبال مرينا أدويدا ماها أدويدا ودارتي عملكنا وحو كصباح يا واجركا ماشينك عملك السمين واجركا جركا أي الله دون يا إلهي نقول رالي اللي يحبناها بس دان حبنا الناس إلهي كو عبدنا كو أدعنا أدويدا السدام دون الله إلهي نو يلي قلبتان شيء كتابك إمام ابن الجوزي رحمه الله وليه صفة الصفوة تسعى جيبه كشك عبد الواحد بن زيد نيل أورنجري نصالح وعابد ريمك أيوها هبين هذا كميدا سدو أدو عيسان يو اللي بريي أيو إله يو وحور إله يو قبلها مؤمناتك إذ أنيق مارك تاني أدو يدا الآخرة جنة يقول تلقى شيء حد يأدونك جوغان إله يتصبوا لي وصيحده markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yiri gabadha maymunata sawdaa layda ee Iraq ku nool ee magaalada Kuufa ku nool ee miiga Kuufa ku nool ayaa kamida gabdhaha muuminaadka jannada lagu guurin doono makuu ka dhaqaaqay Iraq buu tagay magaalada Kuufa yimiday dadkii buu wareystay markaas loo sheego leeydi wartaasi waa tu macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibadeeda xoolo ku dhaqata وإيدا وحن ربيت الماما هل كامرة أوتك باللوجيري وحوي مدى يدو أري بدن دح جوكتا أري جيجي ورابوه نسلب ضاق يا نسلعنا يا مركز جبد صوفا أي مركز هو أنت صلاة بيتك تا سديت بقول ما نوم ملين كتاب هنا كار صباح ذو كلي سديت بقول ركعتك تا ويتك تا ويكبح لا ويتك تا ويحرتا ويتك تا
markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhawaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn ziyad ibn zayd bay ku tiri ballankeenu halkan ma hayno aakhire iska socod bay ku tiri والله يا أبي مجلسين وشيكتي مراد كوس عدنا وشيكتي أريجينا ويا جاي ورابيه بقى إسكده صعدة ولا عبيه ولا ضاقيه ولا نحجوجه وحرقين الزيدين أنا حي ونرجع وسعدة أياك وشيجي وعيت الحديث النبي جماد اللودي إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف حديث النبي محمد يري أرواح بني آدمكو وأسكر إلهي واسكو حرن ويان عالم الأرواح بان وذا جوغيني لبدي الروحي هلك سر اسكو تقاني أدونكنا واسقرنا واسقرنا واسفهمي هادي هلك اسكو صوت ديدينا أدويدنا واسديدي أرواح لنا استقاني السلامة بكتري بل لكيننا وآخره سؤال كلامك ويدي بكتري السؤال هذا كان السؤال قاضي أريقاً ورابو كاعون ما يمحات وآخر دي بولي بليشيك وعيتني هلا يا بن أنيقو إله خالق ربي حريرك نقد حيبان أتكيستون هجا جستي لبدا حريرك كد حيان إلهي بهجا جيتي خلافة عمر أياج أبار باكد على مقالة المدينة يا الضليت كيجا أرياف المدينة دتك ميجاها حوله باكد ماضي مقالة بأسوقحين عمر بن الخطاب ري مدينو ترغيبية وحدا يسان لبا حبو يري نيوال بوحو حييبو بحيي مركابا دادكي ودن راشنكي لسيي أبارتي با دبا ديراتو روبكي براقي مالي والبا تضبق فادمة الله آسا مالي والبا تضبق فادمة الله آسا مركاسو عمر بن الخطاب ورقاد بودر عمر بن عاص ومصر جوغا وحود أديقا جوغا ودنكي برواغدا بدناي وبيالك لهاي صادر معاونو مركاسو صادر ماركتاني معاونو أور براشل لقى صبوحية معاونة دي مركي لك هنا تدخل لسيي هذا نت أبارتي ودبر دراتو رومد دينه قاجدي ويسي زيادة فقري ويسي زيادة أبارتي ويسي زيادة نسحابي أورجي يرسو قبتي أورجي جيبو قلي هلي بوكوا يلا فمو يعني ومحمدا بيقول أوصي هذا هبينكي نبيكم منامكو أرك عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دي باتدا سنقول دعدي مركابو نبيكم كويري عمر سلانيك قارسي لكن عمر وصدقكم موذا يمان نغني واكو سيدي كدبو كيدي عمر سلانيك قارسي مرتا صدقكم موذا ينا ما نغني وكعي من هرددي بو كعي مساجد كيبو يمدي عمر بو شاقي عمر مسلمين تيودن بو يرى صحابة دي فرينتا ابو نبي إيه صدره ما قلدم بليش شاقا هاوات قلدم تلقى ما قلدمت معكو قلدمي كل أباري اعتمادو الرب كنا نقول يرادو وحو نبي محمد ونبري لنا رمضان صلاة الاستسقاء تكن هذا يقول أمير كي مؤمنين تاتحي أمير باتحي أمير خليف باتحي إلهي دعاء هذا وأقبل ياي داتك انتو دو سارت مارك تاني مصلحة انتو دو سارتو هن نو دعي بيكود هذين مركي بنانكي وصوبحين هلكا وعمر وكدعيي هلكي يسقوا عمر تاغن أيا فتك وحلقة دحمق لولا ليه أتاك الغوث يا أبا حفص يا عمر قرمتك أدى البتي وكوي مدي هلكي يكو جوغا إلهي الروكسي صلاة بين لي مادين حاجة دي لهي أوضبول معاونا أتمدي باهيدو دي ويسي زيادي هلكا محان كفهمينا بني آدمكو مر الله مركي بني آدم مخلوق جستان باهيدو دي ويسي زيادي فاقدو ويسي زيادي مشاكل كنا وصيبي ريا مركز صو بني آدمكو حق إلهي أصول نقضانا إلهي حالة دي سنة مركي بني آدم كبدلها إياه مسلم أيها المسلم أعمال أحكام وحا إلهي النبي قال إنه قصوا ديبي حدي مسلمين تقرتان نظامك عالم كودا بدلس روب هالدين لوايو قال هذا ما أنت للي تكنولوجيا بيقارن هرمر بيقارن آلات ما هيان أي روبك كوكاني كران ولكن نبي محمد إنك وحوي النبري صلاة دي دعاء الروبك اللي كوكاني ونبي قلنا بري
nebi reer bani israa'iila dagaal buu galay, dagaal jihaad, dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku laynayo. salaaddii casar baa gaadhay, markaasay nebiga u sheegeen, yidhaahdeen yaa nebiy allah, salaaddii casar baa taagan, salaaddii baa taagan. nebigii waxaa la yidhi fartiisuu ku fiiqay cadceedda, sidaa ugu fiiqay. waa nebi ilaahay doorto rasuula. markaasuu yidhi adigu amar baad ku socotaa, annaguna amar baan ku soconnaa. kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weyddiisannay inuu ku joojiye. halkaa noo joog buuri ilaa aan gaaladaa kala baxayno, halkaa ha ka dhaqaaqin. xadiisku waa saxiix. dagaalkii bay wadeen, way wadeen, gaaladii bay jebiyeen, way ka guulaysteen. khaniimadii xoolihii bay la soo hadheen. kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen, wax walba ay guulaysteen, ayuu nebigii ku yidhi cadceedda inoo eega. weli halkii bay joogtaa, soo ma joogta? haa, salaadda imminkaan tukanaynaa buu yidhi. markay salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba iminka iska soco, iska dhac buu ka yidhi. horumarka caalamku ma gaadha iminka? caalamka horuu maray. maxaa horuu maray? birahan qayliyaa horuu maray, birahan wax duubayaa horuu maray. bani aadamku ma horuu marin maanta, hoos baan u dhacnay innaku maanta. keligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta, beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u weciya. daruurtii buu eegay, meel bay ku daaday, barkad biyay ku dhacday. beertii buu yimid, nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wewcinaya. markaasuu yidhi magacaa, magacii buu u sheegay. magacii uu ka maqlayay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tegay buu rasuulku yidhi. markaasuu ka yidhi maxaad iga weydiisay magacayga? wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine, waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye. beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg. daruurtii waa ka ilaahay adigoo kuu keenee. wuxuu yidhi haddaad ii weydiisay, beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega. qayb beerta ayaan ku celiyaa, qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna, qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi. xadiistaas waa wada saxiix. waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa. muxuu kugu sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam? waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid, haddaad adig iyo ilaahay xiriirka inii dhexeeya haddaad hagaajisid, noloshaada adduunyadan iyo ta aakhiro waxba kaa xumaan maayaan.